qisada igu dhacday waxay tahay anigoo ganacsada ah joogo degan Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa waxaa nagu dhacday 2011 bishii tobnaad waxaan qabsaday dabkaas oo aad iyo aad u halakeeyay magaaladaas saas darteedna ay tahay 3 saac habeenimo dabki kacay waqti la kala seexday oo ahaa waa la kiciyay markaan soo kacay waxa la yiri warmaada haynin bay daba dhacay magaalada daba ka dhacay dabkii baa markaa soo kacay aan imaaday meeshii baan nimid waxaan u imid meeshii oo gubanayso markaas waxaan nidhi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahu wada shalay nasiyay maanta adana qaaday waxaan ku weydiisanaynaa maskaxdeena iyo qalbigeena ilaahu noo badbaadi waxaan waxay wax la waaynaay misl heli karo waaye hanti maxbab ma aha hadduu ilaahay qalbigeena iyo maskaxdeena inoo daayay alxamdulillahi rabbil caalamiin waxa yimid midaan walaalanahay ayaa wuxuu yiri waxaan ku siinayaa lambar oo macnaha niman dibadda joogo qaraabanahay baan ku siinayaa lambarkaas aad wacatido aad u sheegtid dab kugu dhacay iyo dib kugu dhacay waxaan ku yiri markaan waxa soo dhan waxa igaga filan Allah subhanahu wa ta'ala baa igaga filan asigaasoo aan laba rakac u tukado igaga filan asigaasoo baryaal igaga filan adduunyo dhan baa igaga filan baan in laba rakac oo salaatul xiyaan tukado igaga filan ilaahay ugu mid dhibaataynin qisadii ay ahayd isla maalintii 2 bilood ka bacdi baqaarkii baan helay baqaarkii baan lacag yar ku kireystay lacagtii yar ku kireystay nin baa saaxiibkii intuu baqaarkii siiyay lacagii aan ka bixiyay aan ka shubay dib baan u degay ilaahay mahadiis baqaarkii waa lagu ceeshay laba ridood buu noqday meel wax laga raadinay hadii laga raadiyo dibkeeda leedahay meel wax laga raadiyo waxa kamid ah Allah subhanahu wa ta'ala oo loo noqdo Allah subhanahu wa ta'ala oo la isku xiro Allah subhanahu wa ta'ala gacanta loo taagto bilaadanka hadaad barido kugu nacay laakiin Allah subhanahu wa ta'ala bariyo kugu manacayo hanti badan baa iga gubatay ilaa $32,000 ah waan ka soo gudbay waan noolahay haddana waan shaqaynayaa hadda meeshaan kala hadlayno waa baqaar oo wax kasta laga heli karo oo saacada kaamirada ugu jeedaan ayo nooc laga heli karo ganacsigeygii weli ma istaagin intaas waxa keenaya alla ku xirnaashada iyo alla ka baqa loo yeelo ilaahay loo baraxtiro cibaadadiisa in ilaahay loo baraxtiro oo dhaho inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wax kasta waxa ka muhiimsan kelmaddaas ka muhiimsan dardaarankayga waa intaas kaliya qofka hadduu ilaahay ku xiran yahay wax kale oo u baahan yahay ma jirto